dawladnimadii anigu waxaan ka xasuustaa wala iska ladnaa kulle anigu marnaba dawlad xaggeed kuma jirin way iska ganacsataan ahaa waxbaan dukaan yar baan iska lahaa hadhowna dukaankayga bililqadii iyo dhibaatadii buu raacay maanta oo kale 1996 Janaayo ayaa xukunkii laga tuuray dawladdii awoodda badneed uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxaana shacabka magaalada Muqdisho ku dhaqan ay sheegeen in xukunkii laga tuuray Maxamed Siyaad Barre laga dhaxlay dhibaatooyin badan oo dalka soo wajahay xilliga kadib dadka qaar ayaa qaba in xukunkii Maxamed Siyaad Barre uu ahaa mid adag isla markaasina dawladdaasi dalka wax badan ay u qabatay haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxa maanta ay kaga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed Maxamed Siyaad Barre xukunkiisii iyo dadahanimadiisii dibna noo soo mari maayo tii horena waan dhaaftay ilaahay ha u naxariisto tanaha waxaan soo jeedinayaa ilaaha khaaliqa aan barino ilaahay in mid xalaal oo nadiif ah nasiyo Soomaali waxaan u jeedinayaa wixii dhintay waa dhintay waxa hadda nool hay sacfiyeen ilaahna ha loo laabto muxuu ahaay dawlad caadil ah ilaaha laga bariyo diintana ha la qabsado dhibaatooyinkii waa laga soo kabanayaa iskeedana dadku inuu hadduu wax tabto uu isagu ka hadlo isagoo aan waxafgembi iyo orod iyo qararac iyo waxaan sameey bahalkeen uu ka hadlo yiraahdo niyo waxa iyo waxaas naguma wanaagsanee nagada baa fiican aniga laakiin tii oo kale inaynu dib ugu noqono ilama wanaagsanaaniga ma fahanti ana xamar baan taagnay meel maalin ugama bixin ma garat marka anigu aragti ahaan waxaan oran lahaa dhibaatada la iska dhaafo maxay ahayd qof walba wuxuu tabanayna ha sheegto waxa laga dhaxlay duruufo nololeed iyo dumitaan iyo maxaan ku qaran la'aan laga dhaxlaan isleeyahay saas laajliga saas cagsigeed waxa fiicnaad in la turxaan bixiyo waxyaabihii qalad oo jira miiska wadalka laga fado fariisto oo la turxaan bixiyo dumitaan taas ay gala wacnad aniga waxaan isleeyahay haddii inkastoo wax walba qadar yihiin maanta waxaan joogi lahaynaa isleenahay wadamada hadda naga hormar lahaynaa isleeyahay waa fikriyan markaan ka hadla aniga shakhsiyan ahay shakhsiga oo cabira hadafkaygan cabiraya fikrigayga waxaa laga dhaxlay burbur iyo wanaag la'aan iyo dal la'aan iyo dal la'aan dalkan iyaga gubaysi iyo cadow iyo cid walba ayaa u guryoonaysa intaasaan ka dhihi lahay aniga talada ahaantayda dawladdii jirta markaa in la taageero waa wax wanaagsan si madaxweynuhu xitaa dhiirigelin dadka hadda uu ka helo waxbuu qabanaya hadduu waayo dhiirigelin laakiin waxba ma qabanayo waxaan ka shaqay jiray mashruucii sonkorta mareerey shaqo fiican iyo howl badanaan haynay dawladdaa jirtay way fiicneed wax badanaa isbedelay oo hadda dalkii waxaa madax ka noqonaya wax uun tuugaa waxadaya maana wax kale oo wax samaynaya lama arko dadkii iyo dalkii midna waxba looma qabanayo waa la isaga cayaarayaa Maxamed Siyaad Barre wuxuu ahaa madaxweyne sharciya oo wanaagsan oo dadka waxbarashada iyo ka saacidaya caafimaadka iyo shaqada xitaa marka ardaygu jaamacadda ka soo qalin jabiyo intuu jaamacadda uusan ka qalin jabinaa meeshuu ka shaqo tagayo loo baraaray jiray hadda baraarayn iska dhaafe jidka ayaaba lagu dhex dilayaaba in wax loo qabto iska dahay saas waa darxumo iyo dad la'aan iyo dal la'aan iyo dawlad la'aan والله runtii horta dawladda Siyaad Barre boqolkiiba boqol waxaan qaas horta Siyaad Barre madaxweynihii Allah u naxariisto horta aan leeyahay والله runtii aniga runtii adaan shakhsiyaanteeda ka hadlo waxaan aaminsanahay Maxamed Siyaad Barre rejiimkiisii in ridistiisina si qaldan loo maray macnaha on loo darsaday wadanka iyo dalka dhammaan in uu darsaday aaminsanahay aniga fikraanteeda marka والله waxaan leeyahay waxyaabo lagu darsaday waxa kamid ah wadankan wuxuu lahaa waxbarasho lacag la'aan caafimaad lacag la'aan koronto lacag la'aan waxyaabo badan oo lahaa tasiilaad badan oo lahaa dal la aqoonsan yahay oo jira oo karaamo leh oo caalamka karaamo kala ahayn wadankeena loo soo orda ahayn maanta karaamadeena sharafteena wixii oo dhamaa waa meesha waa ka baxeen dawladnimadeena meesha waa ka baxday dadkii macnaha caalamkii la tartamay waa ka harnay maanta waxaan iska noqday wada qaxootiye oo meel kasta maaragtay laga liido oo meel kasta lagu bahdilo xasan kaafi